kulan wacan saaxiibayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada Raja Sport waxaan falanqayn doonaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda qaaradda Yurub oo xirmay iyo koox walba xaaladda ay ku sugan tahay barnaamijka waxaa igala qayb qaadan doona Ibros oo garabkayga midig fadhiya iyo Aragsan oo garabkayga bidix fadhisa aniga oo Jangoon ayaa barnaamijka idin jeedin doona oo su'aalaha weydiin doona inta badanna waxa uu barnaamijkeena ku saabsanaan doonaa suuqa kala iibsiga koox walba waxa ay ka sameysay iyo sidoo kale koox walba hadda foomka ay ku jirto Ibros oo dhow waa maasantahay Jangoon waan dhawahay adi iyo teamka Raja Sports waa salaamaya sidoo kale walaashi waa salaamaya waa dhawahay marka insha Allah Aragsan sidoo kale soo dhow mahadsanid Axmed Jangoon adiga walaalkay barnaamijkana la falanqeynayo iyo dhammaan baahda TV-ga bacdan salaamay waa mahadsantahay sidoo kale aad idin salaamaya labadiinaba waxaan falanqeyn ku sameyn doonaa gaar ah suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo aan ku hormari doono iyo koox walba waxa ay ka sameysay kadibna waxaan imaan doonaa heerka kooxuhu ay ka joogaan horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub inagoo inta badan diiradda saari doona kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub gaar ahaan horyaalka English Premier League Serie A Talyaaniga Isbaanishka La Ligiisa sida guulba suuqa kala iibsiga ciyaartooyda maalintii ugu dambeeyay aan fiirino Ibros inta aad kala socotay saxiixa kula yaabnaa waa maasantahay Jangoon sida sheegtaba barnaamijka falanqeynta maanta waxa uu hadlayna waxay tahay horyaalada kala duwan ee shanta horyaal ee qaaradda Yurub si gaar ah marka ay noqoto suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo sanadkan siyaabo badan marka la fiiriyo ugu duwanaa sanadihii hore tusaale ahaan marka la fiiriyo xaaladda dunida ay ku jirto coronavirus ay dhahaan oo si wanaagsan saameyn badan ku yeeshay dhanka sportska oo kale xitaa horyaaladii aan dareemayno in ay dhamaadeen xilli dambe oo hakad badan uu galay championka sidoo kale taageeraan la ciyaarayay marka ay noqotaan sidoo kale kooxa kasto waxa ku dhacay dhaqaale xumo dunida ku sameeyay dhaqaale xumaasna sidoo kale waxay saameysay horyaalada kala duwan iyo kooxihii kubadda cagta inta way saameysay marka si hadii la dhaho siyaabo badan oo loogu adeegin jiray horyaalada ama kooxaha ay u adeegin jireen marka suuqa noqoto waxa moodaa sanadkan inuu ka yara duwanaa oo financial marka la fiirsho ay kooxa badan ama ciyaartooy badan oo kale kooxa doonaya ay u suura gali weysay inay la wareegaan qaarkood hadda waxyaabaha ugu badan oo lagu kala wareegay ay u badnaayeen oo kale ama ahyo iyo waxyaabo la mid ah oo macnaha si xal oo macnaha financial crisis jiray oo adduunka dhan jiray 88 milyan oo khasaare ay gashay tan markii bandamiga uu dhacay oo taageerayaashii tigidhka goosan lahaa garoonka ay soo gelin oo kulan walba kamno markay u yartahay 80 kun celisan lagu xisaabtamayo maanta waxay taagan tahay Roma waxa la sameeyay Barcelona beykada la sameeyay ciyaartooyda mushaarka laga jaray waxa la marayaa wajigii labaad waxaan la sheegay Barcelona waji labaad ciyaartooyda mushaarka marka laga dhibin doono oo la dhigi doono xaaladan bal inta laga baxayo aan samata bixino kooxda loo dul qaato 88 milyan oo khasaare sanadkan gashay marka waxa la yiri ciyaartooy Messi ay kamid yihiin waxa ay xaq u leeyihiin inay dhahaan inagu qandaraaskeenna hal terminate gareeyo diyaar waxaan u nahay inaan baxno maadaama sanadka ugu dambeeyay maadaama hadda laba jeer ay mushaar mataqaana ay sheegay ku dhacayso mushaar beykad ay ku dhacayso marka dhaqaale daridaas oo jirto iyo suuqii waxa leedahay xiisaha meesha ku yaraa wax badan ciyaartooy la iibsan karay ama koox badan oo ciyaartooy iibsan karay oo doonan karay financial oo kale marka haddana saas ay tahay xiise gooni oo lahaa markay ay noqoto ciyaartooy waaweyn kooxahoodii ka tegay kooxa kale aaday markay ay noqoto shanta horyaal oo kale waxaa hadda inta badan la ogyahay horyaalka ugu dhaqaalaha badan oo kale inta badan ciyaartooy badan English Premier League inuu yahay marka ayagana sidoo kale waxaa jiray ciyaartooy badan oo ay macnaha saxiixay waaweyn ay sameeyeen sida Arsenal oo kale hadda deadline day maalinta ugu dambeysay Thomas Partey in badan taageerayaasha kubadda cagta 50 milyan marka la fiirsho Arsenal ay ku tahay wax qariib ah marka maalinta ugu dambeysay ciyaaryahanka ay ku iibiso waxa dhici jirtay in Arsenal ciyaartooy ay ku raadiso qaab shaxaad oo kale ama waxyaabo nooc mid ay ku raadiso Arsenal hadda shaxaad marka haddana waxa dhacday in saxiix fiican ay sameysay oo Arsenal muhiim u ah sidoo kale Ibros hadda meesha dul istaagno waxa ka maqnaa Arsenal marka la fiiriyo shantii sano ugu dambeysay aan dhahno ama xitaa gadaal aan u maybe 10 sano Patrick Vieira Arsenal ma helin ciyaaryahan burburiye ah oo box oo dhameystiran oo waxa leeyahay markii Arsenal ay qaadaysay horyaalka ambiitika ugu ay Gilbert Silva wuxuu og yahay ciyaaryahan burburiye ah oo fiican oo mustaqbal fiican leh waana nin gaanayso gaana waa ognahay ama marka aad fiiriso waqooyiga Afrika waxa ka soo baxa ciyaartooy kubadda cagta ku fiican bariga Afrikana waxa ka soo baxay ciyaartooy ku fiican marka aad fiiriso ciyaartooygaani muxuu Arsenal ku caawin karaa sida muuqata qof walba kubadda cagta daawado marka la fiiriyo su'aashaas ay u fududahay Arsenal baahi fiican oo qabtaa
in ay hesho ciyaaryahan khadka dhexe burburiye ah hadda waxa ay haysataa sax ciyaartooy macquul ah joogo Xhaka kala joogo laakiin qadaadkiisa aad u badan Xhaka Torreira uu baxay markii la fiirshay inuu la qabsan kari waayay Premier League oo kale dadka qaarkood u sameeyaan maybe physically inay noqoto laakiin haddana Xhaka ciyaaryahan fiican balse qadaadkiisa aad u badan marka Arsenal waxay xaq u lahayd in ay booskaas raadsato soo waxaas leeyahay Arsenal booska u baahneed way tahay marka la fiiriyo falsafada hadduu ciyaarayo Artetane waxa muhiim ah inuu helo ciyaaryahan booskaas oo kale uu kaga xisaabtamo marka wax weyn Arsenal ku soo kordhin kara Premier League waxay ahayd in Thomas Partey Arsenal uu ku soo biiray Arsenal way suuragal Arsenal ciyaartooy ka weyn oo ku soo biirtay Ozil kala ku soo biiray dadka qaarkood ay aaminsanayeen uusan macquul ahayn soo Real Madrid joogan oo ka soo tago kale laakiin waxa kaliya waxay tahay lacagtaas badan oo kale oo deadline ugu dambeeyay dadka qaarkood ay aaminsanayeen wariyaasha xitaa oo waaweynka oo kale ay sheegayeen in la aamini kareen haddana wadada ay martay oo ah in release kalooskiisa ay bixiso iyadoo xitaa gorgortan la sameeyay Atletico Madrid xitaa macalinka Atletico Madrid Diego Simeone uu aaminsanaa daqiiqadii ugu dambeeyay xitaa in Partey uu joogayo ilaa la inform gareeyay oo markan La Liga laga soo maray marka kulan ciyaaryahankaas oo kale waxa ahaa ciyaaryahan kamid ah ciyaartooyda saameynta ugu weyn ku yeeshay suuqa sidoo kale markii la fiirsho Liverpool oo kale waxay la soo reegtay ciyaaryahan Thiago Alcantara oo isagana Andremeno waxa uu yahay saameyn fiican oo ku yeelan karo iyo iyadoo la karo waxay ahayd ciyaartooy ay u baahan tahay markii ay noqoto ciyaaryahan kubadda abuuri karo kala hal abuur oo kale leh Liverpool ciyaartooyda khadka dhexe fiiriso Liverpool baahi badan oo khadka dhexe ah oo mataqaanaa muuqatan aysan qabin laakiin waxa jirto Ibroso waxa la yiraahdaa markaad fiiriso Liverpool waxa miiska la saaran Manchester City oo Real kula tartamayso City marka hadii ay sidaan ay tahay ku sii darsato Alcantara hadii ku sii darsato meesha laga baxay waxa leeyahay markaas waxa waaye City waa loo tababar lahaa marka Klopp qayb kamid ah heshiiska ama 50% wuxuu u soo qaatay ninkan si uu Man City uga cararo markaad fiiriso Alcantara isaga naftirkiisu wuxuu ku soo beeray Liverpool muxuu ku soo dari karaa markay ay noqoto Liverpool sax ciyaartooy dhex oo waxay haysatay markii aad dhexda ugu dagaalanto oo loo ogyahay inay ciyaartooy u badan ciyaartooy kubad burburiyaal u badan oo kale markay ay noqoto Wijnaldum Henderson maxaa la dhahaa Fabinho kale Keita la karaa inuu burburi ahayn laakiin Liverpool ma haysan ciyaartooy hal abuur fiican kule kubadda cagta markay noqoto dhexda markay noqoto taas la dhihi karaa marka waxay u baahneen ciyaaryahan kubadda abuuri kara oo farsamo fiican leh waana Alcantara sababta hadda u qaateen Arsenal oo wareegayna Arsenal iyadana waxaan ka weydiin doonaa wax Arsenal suuq kale iibsiga ciyaartooyda qaaradda Yurub waa soo xirmay maxaa sanadkan ugu la yaabnaa suuqii xagaaga soo xirmay iimaanintii ugu dambeysay iyo sida ay wax noqdeen aada u mahadsan tahay Axmed Jangano marka la fiiriyo sanadihii ka horeeya ka xiisa badnaa marka loo fiiriyo kala iibsiga suuqa ciyaartooyda sababtu waxay tahay cudurkan COVID-19 waa sababtii ugu weyn horta cudurkan xiisaha uga dilay kubadda cagta oo dhanba aad iyo aad taageerayaashii la waayay dhaqaale xumo soo wajahday kooxaha kubadda cagta iyo saxiixyo waaweyn oo aan sida u qiimo badan oo aan weli dhicin waxa taa ciyaaryahanka la soo saxiixay tusaale ahaan hadda Manchester waxay keentay Edson Cavani oo ku soo biiray kooxda wuxuu ku qasban yahay 14 beri oo karantiil inuu galo aad iyo aad oo si toos ah u ciyaari karin marka tan iyo 17 October wixii ka dambeeyay ama buu kooxda ciyaaray waa tahay marka la fiiriyo Jangano dhibaatooyinka jiray kamid tahay waxyaabaha xiisaha ka qaadaba kubadda cagta hadda marka la fiiriyo Cavani laftirkiisa aan ka soo qaban oo Manchester ku soo biiray Manchester inay durba hesho way ku qurux badnaan lahayd oo durbo kooxdu uu ciyaaro marka la fiiriyo xaaladda Manchester ay ku jirtay bilowga xun ee horyaalka English Premier League bilowga xun bartaas aan ka qabano bilowga xun ee Premier League iyo Manchester United markaad u fiiriso iyo Tottenham oo 6 gool u dhiibtay Cavani oo kooxda ku soo biiray weerarka dhalinyarada ah ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Rashford Martial ninkan Greenwood oo dhamaantood dhalinyaro ninkan oo 33 sano jir ah PSG 200 gool ka badan soo dhaliyay Napoli oo soo ciyaaro Serie A ka soo shaqeeyay weeraryahan dhameystiran laakiin age ah iyo raggan dhalinyarada ah isku dhaf tababar Ole Gunnar Solskjaer ku sii dar Manchester United soo kabashada u baahan tahay ku sii dar bal intaas marka isku qiimeeyay Manchester maxaa laga filan karaa marka Cavani saameynta Cavani ma ka muuqato marka la fiiriyo horta Axmed Jangano horyaalkan waa Premier League miisi hadii la keenay xitaa la qabsi uga baahan tahay marka runta laga hadlo qofna ma dhihi karo qofna ma la saadaali karo kooxda la qaadayso ma la go'aamin karo marka la fiiriyo Manchester United Cavani khibradiisa wax badan way ka saacidi kartaa oo dhalinyarada lagu daray balse dhibka jiro waxa waaye
go-aan rasmi ah lagama qaadan karo in Cavani uu noqon karo midkiisa mata bixin lahaa marka lama dhihi karo Manchester top 4 ay galay lama dhihi karo taas waxaa go-aan laga qaadan karaa marka uu xidiga lagu magacaabo Cavani uu kooxda ka soo mid noqdo oo ciyaaro kulamadiisa Manchester soo laabasho ay sameeyso kulamada ugu horeeyo adiga ugu yaraan ilaa iyo dhowr iyo 10 kulan kadib go-aan laga qaadan karaa in Manchester ay noqon karto ama ay heshaba xalkii ama yes Manchester weeraryahanada reer South America marka la fiiriyo tusaale ahaan ninka la yiraahdo Ronaldo Falcao kooxda yimid oo xilli uu soo jabay yimid kooxda Alexis Sanchez yimid isaguna ma ahayn mid natiijo fiican kooxda keeno dabcan uu ciyaaryahan falooba Cavani waa nin Uruguay ka soo jeeda Colombia marka fiiriso Sanchez isaguna ah Chile iyo ninkan Uruguay ah waa South American dhamaantood marka kategorigaas adiga aan baqaadayo iyo kategoriga weerarka marka aad ku fiiriso iyo reer South America siday mar walba ugu fashilmayeen tan iyo Juan Sebastian Veron ka soo bilaabay si ugu fashilmayeen garoonka Old Trafford marka la fiiriyo Ahmed guuleysan kara ma guuleysan kara taas la jirkeeda xanuun kale sababtoo ciyaaryahan hore oo aad isku wadan heedeen meel uu soo maro haduu ku fashilme micnaheedu ma in aadna fashilmi kartid laakiin inta ugu badan marka la fiiriyo dhibaato ku noqon karta ani xitaa waxaan isleeyahay Cavani waxa burburi karo saameyntii faraha badneed uu ku lahaa Faransiiska kuma yeelan kara isleeyahay Old Trafford marka la fiiriyo Faransiisku marka waxaan isleeyahay marka la fiiriyo xitaa Jamie Vardy oo kale oo hadda uu ciyaaro kooxda kubadda cagta Leicester xitaa kaga saameyn badnaan karo marka la fiiriyo hadalhaynta horyaalka Spanish kana noogu hormar Spanish ka Barcelona waa kala daadsan tahay waxoogaa Real Madrid sidii ay horyaalka ugu qaaday ku soo laabatay suuqa ka iibsiga markaad fiiriso Barcelona Memphis Depay aad u raadinaysay oo aad ka warqabto inuu Lyon geeyay semifinalaha Champions League markaad fiiriso Memphis Depay laakiin way ku qasaarto ma isla soo sayaxan Usman Dembele wuxuu ku dhawaatay Barcelona inay iska fasaxdo laakiin way ceshatay Messi ilaa iyo haatan ma haysta team isku halayn karo oo yiraahdo alla ilaahay garbahayga waxa ku jira rag Barcelona meel fiican gaarsiin kara Real Madrid iyo Barcelona tartankeeda Atletico Madrid oo Luis Suarez lagu sii daray xaaladahaas oo dhan ka qiyaasta hor Spanish marka la fiiriyo horta horyaalka dalka Isbaanishka intuu horyaalka bilaaban jaago'an oo hadalhaynta ugu badneed ee kubadda cagta meesha ka taagneed halkaas sababtoo hadalhaynta intuu ugu badan waxay ahayd in Messi kooxda uu ku tagi karo balse ugu dambeyntii go'aan laga gaaray marka la fiiriyo Messi oo hadalhaynta ugu badneed ahaa inuu kooxda ka tagayo Barcelona oo xaaladan wanaagsaneen ku soo bilaabanaysa marka la fiiriyo ciyaartoydii cuduradii uu saameeyay isku dhacyada kooxda ciyaartooyda laftirkooda uu jiro tababariyo kooxda la qabsi uga baahan tahay ciyaartooyda in isfahmaan ay tahay يعني waxaas oo dhan waxay noqonaysaa xaalad adag oo horyaalka dalka Isbaanishka kooxaha waaweyn mid kamid ah oo Barcelona ay wajahayso balse marka la fiiriyo kooxahan kale Real Madrid ay kamid tahay waxaan isleeyahay Real Madrid mar kale waxay hadii aysan dhicinbo ay qarka u saaran tahay inay horyaalkan ay gacan ku sii heleen gacan ku hentiisa ee la sii haysto Ibros aan u laabanayaa Ibros waxaan rabaa marka inaan ogaado Atletico Madrid sanadkan Atletico Madrid waxa ay isku haysataa tababarihii Diego Simeone waxa ay haysataa Diego Costa waxay haysataa Luis Suarez Thomas Partey aad la qaatay oo xoogaa dhib ku ah laakiin Lucas Torreira ay booskiisa gelisay Atletico Madrid sanadkan ma santahay su'aal oo runtii muhiim oo meesha ku jirto waaye sida muuqata horyaalka Spain markii ay noqoto inta badan dadku waxay aaminaan Real Madrid iyo Barcelona kale inay tahay waan sida caadiga ah waaqiciga ah jirto haddana waxa jirta sanad walba koox waxa jirta markino xoogaa carqaladayso tuuri amal soo dhex gasha waayadan dambe laakiin waxay ahayd kooxda Atletico Madrid ahayd oo waliba ayadoo Barcelona iyo Real kala dhantaali karo kooxda kala aad wayna dhacdaba ayadoo joogay horyaalka qaadatay marka way jir karaan kooxo kale sida Sevilla Valencia marmar xoogaa carqaladeeya walow ay Sevilla kale ku fiican tahay Europe kale marka ay noqoto xagga ka xariiftanto Europe League kale aad u xariiftanto laakiin Atletico Madrid waxa isleeyahay marka la fiiriyo dhibaatada Barcelona hadda ku jirto waayada dambena ay ku jirtay iyo Real Madrid oo ayadan runtii aan sida hore looga bartay oo kale aan ahayn walow isku shaandeen fiican oo Zidane ku sameeyay sidii Ronaldo uu tagay xitaa uu kooxda minteen fiican ku sameeyay oo kooxda hadda ay ka maarantay hal ciyaaryahan inay soo iibsato waxa isleeyahay Atletico Madrid waxa u furan tartan u furan wayna markino suuragal in ay maxal dhahaa ama horyaalka qaado ama garaan markino aad markin u tartanto marka la fiirsho hadda ciyaartooyda ay la soo wareegtay oo kale Luis Suarez oo nin way arag ah guud ahaan kubadda cagta ka ah haddana si gaar markay noqoto horyaalka Spain oo kale ka ciyaaraya aad u fahansan mar walba koox oo weyn markuu ka hor imaadana aad u dhibaateeya haddana la soo wareegtay iyo
Suarez ma ogeyn xitaa in laga diray walow la dareemi karay in uu ka mid ahaa dib u habeynta kooxda Barcelona u baahneed in dadka uu laakiin Barcelona ma la habeeyay waay ma jawaabteedu waxa lama dib u habeyn fiican lagu sameeynin hadda ka sii daranta dhigi karnaa waayo Suarez jacburkaaga in haysato Soomaaliya ma sababtoo Soomaalidu waxay tiraade fulay ama geesi fulayaashiisa wata ayaa ka adkaado geesi fuligiisa ka soo tagay marka hadee Suarez diraa maxay ahayd inay bedelkiisa helaan sida Atletico Madrid oo kale hadda ku xisaabtantay Suarez markii ay heshiis la gali rabtay ay dhaweyd waxay dirtay Alvaro Morata dirtay bedelkiisana automatically way ku heshay Suarez oo soo uu buuxiyay booskiisa daa ahaado marka la fiiriyo mustaqbalka fog hana qato laakiin hadda 2 sano had soo socod saameyn fiican ku lahan karo Premier League Ibros markaan falaqeynayna waxaan ka tagnay koox aan awoodeeda wajiga koobaad 4 kulan la ciyaaray cidina aysan dafiri karin waa Everton oo haysata dhalinyaro haysata tababare la yiri adigu superstar ma ahna wax kale lama shaqeyn karto waa tababare Carlo Ancelotti laakiin cadeeyay inuu mentally ahaan Everton ka dhaadhici karo inay tahay top 4 kooxdii karto ama horyaal u qaadi karto sida Leicester naga yaabay 2016 mid jirta waxay tahay horta maxaa la dhahaa marka laga soo tago saxiixyada uu sameeyay marka laga soo tago haddana shakhsiyadda macallin Ancelotti hadda ma umaleynaa inay u baahan tahay sharaxaad badan maxaa la waa ku guuleystaan 3 jeer Champions League macallin dhalinyaro soo saaro ilaa ka laga soo bilaabayo maxaa la dhahaa horyaalkii uu taga bashida PSG da maanta aan ka yaabanahay isaga soo shiday Real Madrid la dasiiman ku qaadayo Chelsea oo la qaaday hore la qaaday marka waxa uu jeedaa taas marka laga soo tagay xitaa macallimiinta Talyaaniga oo kale oo hadda asaga uu dambeeyo waxa Everton hadda aan dareemayno saameynta fiican uu ku leeyahay waxa jira macallimiinta Talyaaniga ka horeysay dhan asaga markii ay Premier League imaadaan oo kale waa ninkii aan ka hadlayno Leicester u qaado horyaalka waa Claudio Ranieri waa Talyaani waa oge Chelsea waxa u qaado Conte u qaado waxa jira Mancini aad oo badiyay markay naqato macallimiinta Talyaaniga waxa is leedahay horyaalka Premier League guuleey ka gaaraan dunida wali fiican horyaalka Premier League kaliya ma dunida dhan markii la fiirsho overall macallimiinta kubadda cagta adduunka soo martay macallimiinta Talyaaniga macnaha gorgortan magalaan ma laga daba hadli karo waxa muuqato saameynta ay ku yeeshaan kubadda cagta meesha ay tagaan marka waxa is leeyahay ciyaartooyda hadda Ancelotti oo ciyaartooy kooxahan kale markino qaarkood ka fiican marka laga soo tago James oo hadda Real Madrid ka imaado ciyaaraan weyn ah walow waayaan dam u ciyaareen laakiin James wixii laga filayo maahana wuxuu soo bandhigay Ibros waxa caadi ah way dhici kartaa markuu Real Madrid joogay in laga faa'iideysan waayay booskiisa wato president iyo isaga mataqaana ay sheeg xafiltanka oo urufta hoose ka dhaxaysa uu ku iloobi karo Zidane oo kale sida Isco kala joogay marka James uu fiican yahay sida hadda muuqatana saameyn fiican Premier League uu ku leeyahay waxa is leeyahay qof walba oo xirfad yar la taga Premier League inay ka muuqanayso xirfadiisa dadka sida caadiga waxa lagu dhalay Premier League wuxuu yahay Benoni kubad oo orod ku dhisan xirfad badan lahayn faca iska dhiciya qofkii xirfad la taga meeshaas haba iska tawardarnaado laakiin xirfad la taga qofkaas horyaalkaas macna waxa Arsenal marka uu soo wareegaya Ibros waa ku soo laaban doona Arsenal waxaan rabaa Manchester United iyo dhibaatada haysato aan ka tagno liig xagga aan iska dhigo markaan Serie A aan aadno Serie A waxa ka jirta xaaladan caadi ahayn oo dabcan gudjigii lagu yaqaan Serie A kuma bilaaban laakiin kooxda hadda horyaalka hogaaminaysa waa Atlanta waxa la yiraahdaa qora ay tuurta qajaftiisa kama naxdin Atlanta waxay ahayd Europe oo dhan kooxdii ugu gooyasha badneed seasonka la soo dhaafay waxay haysatay dhalinyaro aan caadi ahayn waa kooxdii ku dhawaatay Champions League semifinal inay ka gaarto waa kooxan caadi ahayn oo mataqaana ay sheeg dhalinyaro fiican haysata iskuna aadan oo isku shaandhays marka Atlanta ay horyaalka hogaaminayso Juventus laakiin Boston looga baranay taala ka waran Serie A in badan Axmed Jagano Talyaaniga horta dad badan waxay ahaayeen kuwa sugay in isbedel noocan oo kale oo ka dhaco wax badan la sugay marka la fiiriyo in Juventus hadda ilaa adiga top 10 ay ku sii dhowdahay inay ka sii dhacday ku dhowdahay top 10 balse waa wax xiisaha gelinay horyaalka Serie A ma xiisa dilay sababtoo ah in isbedel uu yimaado meesha oo kooxii waaweynaa si horta Juventus Axmed Jagoan boqolkiiba boqol waa wax aad u qurux badan in la arko Juventus oo la xifaaltamaayo in kooxaha Talyaaniga in kooxaha Talyaaniga xifaaltan ay muujiyaan siiba kooxda kubadda cagta Atlanta iyo sidoo kale kooxaha Inter Milan oo ay kamid tahay in yani dardar isgeliyaan oo ugu yaraan ay fishaan in ay ka riixi karaan booska koowaad ee horyaalka Serie A wax aad u qurux badan koos marka la fiiriyo sanadii la soo dhaafay halka Juventus ay ka taagneed horyaalka Serie A aad u xiisiis oo dhintay horyaalka qaaday Atlanta hadda xaaladeeda markaad qiimeyso oo kooxdaas aad aragtay oo seasonka la soo dhaafana waa ay dhigtay championkana sanadkii ka horeeyay soo baxday bal ka waran iyadana ma la dhihi karaa waa koox ugu yaraan
dadku ay dhihi karaan Juventustan 9 jeer horyaalka qaada maahan halkan koox noo dhex gasho Atlanta ma dhex gali kartaa aad iyo aad markaad fiiriso Axmed Jangano Atlanta sida horyaalka Serie A ku bilowday qaabka ay ku socoto iyo sanadii ugu dambeeyay bandhigyada ay sameeysay dhoolatuska sameeysay intaba waxaan is leeyahay waa mid bedeli lahayd kooxda kubadda cagta Juventus okay Juventus waxa ka tagay Douglas Costa oo ku laabtay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo amaah ay ku qaadatay iyaduna amaah 2 sano waxay ku soo qaadatay Jesse oo ah xidig dhalinyaro ah oo Fiorentina ay ka soo qaadatay dhanka iyo Andrade kooxda kubadda cagta Fiorentina waa sax hadii aan qaldanayn marka markaad fiiriso Juventus oo ciyaaryahankaas dhalinyarada lagu soo daray aad xasuusato Bernardeschi hadda inaan laga faa'iideysan oo si sax aan looga faa'iideysan ninkaas Talyaaniga Federico Chiesa ka war macaldiisa markaad fiiriso Axmed Jangano ciyaaryahanka waa run oo kooxda kubadda cagta Juventus horta dhibaato waxay imaadaa markii kooxda laacibiin isugu yimaadaan dhibaatada ugu badan because hadda waxa xasuusanaa waxa jiro huriya dabcan marka laga hadlayo koobka waaweyn xulalka kale marka laga qayb galayo waxa dhibaatooyinka ugu badan qaba waa xulalka ciyaartooyda waaweyn haysto ciyaartooy magac iyo saameyn leh markay yihiin wax ka dhibaato badan tahay malaha hadda Juventus marka fiirina ciyaartooyda haysato horyaalka Serie A ma umaleynaa koox u dhiganta inay jirto haddana markaad fiiriso sanadan xaaladda ay ku sugan tahay sababta keenaysa waxay tahay ciyaartooydii oo wada saameyn leh oo kulligood yani ay yimid waliba tartan uu ku jiro laacibiinta isdilayso waxa xiisaana ka qaadayo inta sanadkan waxoogaa waa fiican tahay waxay ku xigtaa kooxda kubadda cagta ee Atlanta iyaduna dabcan markaad fiiriso waana koox tartamayso Conte waxoogaa waa soo dhisay kooxda waxa isbedel muuqda ku dhacay Juventus suuqeeda kala iibsiga markaad fiiriso AC Milan ayaa sidoo kale iyaduna sare u kac fiican sameynayso madaxeedu waxoogaa muuqda oo leeyahay AC Milan war sanadkan ugu yaraan waxa la dhihi karaa tofar oo amaanay marka AC Milan hadee macquul ma tahay inaysan banjarin oo ay joogto AC Milan meesheedo ay wali dagaalanto horta Axmed Jangano dhibaatada jirta marka kooxaha Milan laga hadlayo waxay tahay AC Milan iyo Inter isku haleen leh AC Milan isku ma haleen karo marka in top 4 ay ka mid noqoto kiis kala gooni oo noqonaya laakiin wax lagu fududaan karo saadaalinteeda marka AC Milan marka lagu Ibros aan ku laabanaya Ibros xulalka qaranka ayaa la aaday ciyaarahooda waxaana jiro wax ay wariyaashu dhahaan FIFA virus oo ciyaartooyda qabsado oo xaalad aan laga kabsan karin ama kooxda qasi karta tusaale ahaan ciyaartooyda 11ka ku ciyaarayo fit ah oo dooqaaga uu saxnaa waxba aysan ka qaldaneen ayaa waxa dhacaysa qaramada in la aado qaramada marka la aado 3-4 ciyaartooy muhiim ah ka soo dhawaameyso qaramada marka la aado marka dhaawacaas inta badan wuxuu saameyn ku reebaa xitaa koox horyaalka u tartamayso oo FIFA virus haduu qabsado ay macquul tahay ilaa 3 isbuuc 4 isbuuc oo kale inay isxili weyso oo kooxda 3 isbuuc 4 isbuuc laga badiyo ama hal kulan ay bardhac gasho kadibna ay sidaas ku jabto Everton tusaale ahaan ciyaartooydooda marka fiiriso hadda waxay aadaan qaramada Everton kulanka xiga Liverpool la ciyaaraysa rajayna oo marse darbi u yahay ka waran marka wajigaas marka fiiriso Everton iyo ciyaarahaas iyo koox walba oo hogaanka horyaalka haysaba oo lama filaan ah sida Atlanta Everton oo kale FIFA virus ma santahay ka hor intaan soo aasas ka jawaabin waxa ku laabanaa arinta Serie A oo aan horyaalka sida khaaska u xiiseeyo yahay aad iyo aad waxa rabaa inaan ka hadlo mid horyaalka guud ah tusaale ahaan hadda sheegnayba Atlanta oo kale ay tahay kooxda runtii aad markan wacdaraha fiican u dhigaysa dhowr sano la soo dhaafay ay muuqatayba saameynta ay ku lahayd xitaa Champions League oo kale ay group stage wada galeen Man City oo kale aan dareemeyn inay tahay kooxaha ugu fiican Europe oo kale groupkin ay soo baxday ugu dambeyn PSG ni faha walo laba lug hadii ahaan lahayd ay waxyaabo badan isbedel lahaayeen hal lug oo ahaa ilaa 90 daqiiqo ku dhawaad markano natiijo fiican ay lahayd marka koox marka Atlanta sida hadda 3 kulan la ciyaaray 13 gool dhalisay sida hore u sheegnaba almost 100 gool ku dhawaaday maxaa la dhahaa ee dhalisay ama 100 gool I think inay ahayd sanadka hore marka waxa meesha ka muuqato in Atlanta waliba ciyaartooyda soo baxdo kalaba ay badan ay ka sii tagayeen waliba lacag sameeynayay bedelkeeda in lacag ciyaartooy soo gadato maan ciyaartooy academy oo kale soo saaray taas waa meel sidoo kale Inter Milan oo ka hadalnay Inter Milan ayadan runtii sidoo Conte uu imaaday waxay sameysay isbedel fiican ay sameysay Conte macallin ciyaartooyda ku abuuro dhiig waaye walow ciyaartooy age ah lagu sheegay inay haystaan haddana ciyaartooy macquul oo runtii ku dagaalami karta hadda kulanka dhawaada Fiorentina waxa bedel ku soo galay rag waaweyn ku soo gal Fidel Sanchez Erikson oo kale noocaas oo kale hal mar ciyaartooy wax ka bedel ayadoo gool lagu leeyahay hal mar wax bedeleen marka waxa muuqato in Conte isagana hadda uu Inter ka dhigay uu ka dhigay koox ku dagaalami karta sorry Talyaaniga lana macnaha dagaalami karta ama la tartami karta kooxda Juventus oo kale
marka la tartamayo waa arinta Juventus 9 jeer oo arinta hata Juve waxa dareemeynaa in sanadka hore ay Juve la soo wareegtay macallin Allegri ee Borussia ee keentay Sarri kadib isagana lagu fashilmay inuu waxa kadib Sarri naadiga laga diray oo naadiga la keenay ciyaaryahan runtii macnaha Pirlo oo legend oo football markii ay naqato kubadda cagta inuu ciyaarane haddii aan ibras wax ka weydiiyo Pirlo waa mid kamid ah ciyaartooyda jiilkooda ugu fiicnaa hadduu sahamkii ugu fiicnaa boqorkii kubadda degan waa ay ismaaneen kubadda salaaxa u baashaara nin maanta aqal ku yar yahana maaha dadka qaar waxay aaminsan yihiin Pirlo meesha waa lagu degdega sababtoo ah maalmo qura ayuu hayo kooxda toban maalmo qura kadibna kooxda kubadda loo soo dalacsiiyay markaad fiiriso Pirlo aniga 100% waxaan dhihi karaa Pirlo waa macallin mudan oo la isku haleyn karo laakiin adiga aragtida ma maasan tahay dadka aniga waxa ku jiray sida caadiga ah markii la dhahay Sarri la buriyay waxa filay macallin kale oo horey macnaha kubadda cagta uu soo jiray oo kale way ugu adkeed macnaha dadka caadiga ah sida si qaasata teamka Juventus taageero si deeply wax u soo ogyihiin xogta xataa socoto marka xataa xog aan hore u ogeyn oo kale macnaha ma ahayn in Pirlo qaban karo laakiin markii ay noqoto kubadda cagta waxa jira ciyaartooy kubadda cagta heer fiican ka gaaray sida Pirlo aan dareemi karno heer fiican uu gaaro kale ama Zidane oo kale haddana markay macallimiin noqdeen guuleystay sida Zidane oo kale oo muuqato iyo ciyaartooy sidoo kale labadaba waa Juventus oo Zidane Juventus Pirlo waa Juventusna waxa la sheegaa inay tahay marka la joogo Talyaaniga kooxda ugu badan ee soo saartay ciyaartooy marka dambe macallimiin noqday marka Zidane waa ka warqabnaa oo ah ninkii 3 jeer oo xiriirka ku guuleystay Champions League jiskaas ma qaadi karaa way u furan tahay minaha mid ahad ka hor dhici karnana ma aha way u furan tahay haddii uu noqonayana dee waqti uu haystaa walow pressure uu jiro haddana wuxuu haystaa inuu ismuujiyo hadda markuu imaaday walow shahaado xitaa ma qaadan markii uu loo dhiibay macallimada gadaal dambe uu ka qaatay oo imtixaanka uu ku baasay marka Pirlo waxa uu sameeyay hadda waxyaabaha oo lagu amaani karo soo hadda uu sameeyay waxay tahay in ciyaartooydii kooxda da'daha ama numberka ugu badnaa oo la rabay in naadiga laga diro ka diray ilaa ciyaartooy 10 ciyaartooy gaari soo diray dadka Juve faniska ay aad u nacbaayeen salaha in la diranay jeclaayeen anaga kamid ahay Rugani oo diray Deschilio wuxuu diray maxalamatuydii Higuain Douglas Costa kamid ahaa team badan oo la aaminsanaa in Juve ay culays ku yihiin oo kale walo Douglas Costa uu fiican yahay haddana dhaawac u ahaa macnaheedu wuxuu ahaa 3 kulan isku xigtaan ciyaari karin oo waliba Chiesa soo nin bedelkiisa oo Chiesa uu keeno marka waxyaabihii ku amaani karo Sofa uu sameeyay mid kale kubadiis waxa Allegri oo kale iyo macnaha nin kale yiraahdo Sarri waxyaabaha aan taban waxay tahay kubadda in ay pressure ku raacdaan Pirlo waxyaabaha ugu horeeyay markuu uu sameeyay waxay tahay kubadda football based positional macnaha ina sameeyno kubad heesasho ah ninkii Barcelona uu ka soo qaatay Arthur kale oo haysan Arthur kale Bianchi meesha ka baxay way laha marka wuxuu la jeedaa waxay tahay kubadda hadii aad loos gareyso hore ka soo raadi macnaha meeshaas waxa isleeyahay Juventus waxa ka maqnaan jirtay markay kubadda dhumiso in ay kubadda hore ka raadiso marka waxa isleeyahay marka hor dhaceen 2 kulan oo ciyaari lahaatan kulan uu badiyay pointii kale Juventus hadda soo dareema kaalin 8 meelaas ku jirta laakiin 2 kulan ciyaartay kulan waa badis kulan Braga gashay kulan kale uu baaqday wada kulanka Napoli uu baaqday marka waa ka hor rabaa in aad dabcan iga sheekayso marka su'aashii aan ku weydiiyay adoo yufa u gudbay ciyaartooyda markay ana qatarto kulamada xulalka la aadayo saa sheegtay waa dhibaatooyin badan dhacdo waxa jiro kale ciyaartooy badan kooxo badan waxay ku waayeen koob muhiim u ah kulan muhiim u ah ku waayeen ciyaartooyda ka aadaan dhaawac ku soo baxaan marka waa suuragal in ciyaartooyda dhaawac ku soo gaara waxa la dhahaa dhibaato ku noqoto laakiin sida caadiga ah koox kasta waa inay xoogaa u diyaarsan tahay ciyaareenka duu ka dhaawac bedelkiisa kale inuu heshaa sida waa marka Everton waxa leedahay taas deeso ku dhicin haddaysan ku dhicin dareemayna ma haysato ciyaartooyda macnaha 2 koox ma dhama koox ciyaartooyda waa in laga yaabo 12 ciyaartooy oo Man City oo kale maybe ina afsudaami karto marka waxa leeyahay waxaan rabaa Ibros inaan kale ku weydiiyo xindaabka suuqan ku laabanayna mar kale suuqa markaad fiiriso dabcan wuxuu ahaa suuq la yaab leh laakiin kooxaha la yaabka ka dhigay Manchester United ka mid ahayd oo 4 ciyaartooy ka soo qaadatay suuqa maalintii ugu dambeeyay sida guud markaad isku bardhigto natiijooyinkii aad ka aragtay Premier League iyo kooxuhu siday u falgaleen oo ma taqaanaa ay sheegay 6-7 loo dhiibay 2 koox oo waaweyn oo labada koox ugu waaweyn ugu guulaha badan Premier League ah oo Liverpool aysan waxba is saarin oo xitaa aysan goolhayn la soo wareegin goolhayn dooq labaad Liverpool ma aysan doonan marka hore waxay u badnaayeen goolhayn dooq labaad dooran doonto Alisson Becker hadii uu meesha ka baxo goolhayn dooq labaad ay doonayso laakiin ma aysan doonan natiijooyinka isbuuca maxaa kula yaabnaa
Manchester United oo aan si qaas ah ku weydiinaya iyana iyo Liverpool maxaa xilli ciyaareedka dabcan ku soo ma santahay horta su'aashaas Real United xataa jawaabteeda almost waa isku ogyihiin ayaga nooga sii aqoon badan laakiin Manchester United inay u diyaarsaneen in meel ay tagto way muuqataa markii ay naqato alagana soo shar wuxuu dabcan sanadkii saddexaad ku jiraa waxaas leeyahay soosha fursadaha la siiyay waxyaabo badan waqtiga badan oo istaadii macallimiinta qaar kood ay hel lahaayeen oo kale inay markino inaysan hel lahayn marka la fiirsho ninuu ku cusub badda cagta waaye aanan koox sidoo kale hore u soo leelin ilaa haddana macnaha wax muuqdo weyn oo hadda isbedel hadda wararka waxay sheegayaan in la faargareyn rabo macnaha suuragal tahay in la buriyo marka haddana qaabka oo suuqa u galayaan kooxda waxaa laga yaabaa inaysan awoodiisa hayn laakiin maamulka sare oo kale Manchester markii ay noqoto waxaa moodaa inay ka duwan yihiin kooxaha kale in qaabkii suuq u adeeganayaan aad loo dhaliilo sida qaaska ah ninka ugu sareeya hadda oo dhanka suuq u qaabilsan Woodward oo kale in macnaha oo markino aad loogu dhaliilay qaabka uu soo wareegayaan ciyaartoy hadda Manchester oo kale waxay u baahan tahay daafac dhexe aad ugu baahan tahay waxay u baahan tahay ciyaaryahan numberka 6 oo kale kubad u raacdo kale sidoo kale u baahan tahay haddana waxaa moodaa inuu ciyaartoy Van de Beek oo kale oo laga yaabo 8 ama 10 inuu yahay inuu waqti geliyo u raadiyo garab ay u baahan tahay haddana wali kooxda asiga lagu sii halay haddana kaliisa loogu dhaafay 9 waxaa laga yaabaa inay u baahnayd xilli horeba Ibrahimovic xilligiisa kadib 9 fiican u baahnayd ma helin marka waxay ka sidaan I think igaala ma qaan ilaahan ka nooc soo kala marka waxaas leeyahay United u baahnayd ciyaaraha nooba fiican inay kansado sidoo kale u baahnayd Cavani oo kale hadda waxaas leeyahay daa uu yahay haddana wali uu la xariiftami karaa oo booskaas waxaas leeyahay waa boos macnaha muhiim u ah kooxda maqaayadda caalamiga ah ee Asal Mandi ayaa barnaamijkan dabcan aan hoygeeda ama howlkeeda ku haysanaa Ibros iyo Aragsan ayaa igala qayb galay Aragsan markaan wareegi doono oo wax ka weydiin doona waxyaabaha la xiriira markaad fiiriso horyaalka English Premier League oo iyadana aragtideeda ay ka dhiiban doonto Aragsan FIFA Faris aan marka hore ku hormarno FIFA Faris waxa uu saameyn ku yeelan karaa degdeg ah oo natiijo horyaalka oo hogaaminayso degdeg ku bedeli karaa Everton Atlanta waa laba koox reer Serie A iyo English Premier League kala hogaaminayaan sidoo kale iyadoo ku dheer Real Madrid ee horyaalkaas hogaaminayso La Liga Bayern Munich xagga waa isaga rukun oo Jarmalka iyo Faransiiska waxba ka soo qaadi mayno oo xoog weyn ma saarayna laakiin horyaalada aad loo xiiseeyo xoog saarayna FIFA Faris markaad fiiriso iyo xaaladaha hadda kooxda ku jiraan haddii FIFA Faris uu dhaco maxay bedeli marka la fiiriyo Axmed Jango horta waa mid jirto qaybna ka caqabadaha kooxaha dabcan ku imaan karo la rabo inay ka kabsadaan kooxda hadaysan marka hore u diyaarsaneen horta doontu way la degaysaa tusaale ahaan hadda labada kooxood ee Atlanta iyo kooxda kubadda cagta Everton oo kale marka la fiiriyo labadaas kooxood waxa isbedel ku imaan karaa qaybta hogaanka ay horyaalada ka hayaan taas bedelkeeda waa haduu dhaco taas bedelkeeda waxay fursad siinaysaa kooxaha waaweyn ee hadda qaybaha dhexe ama qaybaha hoos horyaalka ku jiro Juventus oo kale marka hadii Atlanta jabto oo 3 ama 2 ciyaartooy oo fiican ay ka jabto Juventus Milan waxay helaysaa fursad helaysaa in badan marka la fiiriyo horta Atlanta ma la dhigi karo Juventus way celin kartaa ma la dhigi karo ama hogaankii uga sii dhagnaan kartaa ma la dhigi karo oo kusima in la dhaawa macquul laakiin hada kooxahan Inter Milan iyo kale hadii ay soo qaadaan waxa laga yaabaa in ugu yaraan iyagu laftirkooda iska caabin ay sameyn karaan laakiin Atlanta kuma haleyn karno horyaalka Serie A isbedel laftirkiisu u baahan yahay marka u soo laabano horyaalka English Premier League oo kale hada xiisaha ugu badan ka taagan yahay kooxda Everton qaabkay ugu dhaganta horyaalka horta ma sii jiri doonto sida u badan tahay waa hadii dhaawacay kooxda ay wajahaan balse kooxdu waxay ku wacnaan lahayd in ciyaartooydeeda ay sidan u sii haysato laakiin hadii xul in la aado ay imaado ciyaaryahanka dhaawac uu la soo kulmo si la mid ah cunug maxaa la ciyaaryahanka hadii yani wax yar oo xitaa sanadka la isku maaleen karo wax yar hadii qof u yimaado waa corona la leeyahay laftirkeeda waa caqabad kale ma jirto marka laakiin isbedelaha jiri doono coronavirus wuxuu hayaa ciyaartooyda Premier League qaar kamid oo hadda uu ku jiro Gundogan ama malaynaa inuu liis ku jiro marka caadi waa coronavirus waa karantiilka galay corona naftirkiisa lagu waxaa lagu tashto aad iyo aad laakiin marka la fiiriyo horyaalka dalka Isbaanishka oo kaleeto isbedelkiisa wuxuu noqon karaa koox waliba kooxda hogaanka ee kooxaha ka hooseeya isku soo qaadaan markaad fiiriso Premier League tabar Frank Lampard iyo kooxdiisa Chelsea sida guud waxay ku jiraan xaalad kacuf ah adii Ibrahim min hal su'aal ku weydiin doonaa Chelsea xaaladeedu waa sidee marka la fiiriyo Axmed Jango kooxdan uu hogaamiyo Frank Lampard ee Chelsea xaaladda ay ku sugan tahay waa soo sheegtay horta waa ku fiikac laakiin ugu yaraan wali waxay dhaantaa kooxo iyada dabcan marka la fiiriyo tababarayaal ahaan ka weyn
city iyada naftirkeeda ibros xog maana saaran waxaa rabaa city iyadana hal su'aal inaan ka weydiiyo Leeds United aa kulanka ugu dambeeyay bardhac la gashay city tababare Pep Guardiola waxay leeyahay sanadkan uma muuqdo mid horyaal u tartami kara marka la fiiriyo horta Axmed Jaan Go'aan oo Pep Guardiola iyo Manchester City sanadkan marka la fiiriyo qaabka ay ku bilowdeen iyo sanadkan sanadkii ka horeeyay tartanka qaabka ay ku bilowdeen sanadka hore aad kooxdu caabaneed tababara aad u caabona laakiin sanadkan ma aqaan wax iska bedelay Pep Guardiola laakiin hoos u dhaca ka muuqda sida runta ah qaabka horyaalka uu ku bilowday marka la fiiriyo in kooxaha yaryarna Pep Guardiola ay kula tartamaan horyaalka English Premier League laftirkiisa hoos u dhac iyo jab ku tahay marka waxaan is leeyahay tababara wuxuu u baahan yahay in hadii koo boorjaf isku sameeyo oo boorkiis ka soo jafo laakiin haday saan wax ku asay hadii la jafada alla aruuri waa aad weyn Premier League Man City ila hadii ninkan kooxda loo keeno horyaal way iska cadahayo laba horyaal oo qaada laakiin Champions League ma isto aad horta mid jirto Axmed Jaan Go'aan waa run main point waa marka la fiiriyo Manchester City horta markii la keenay Pep Guardiola sababta ugu weyn kooxda loo keenay ma ahan Premier League sababta Manchester City caadiyan waxay koox u tartamto Premier League caadi waxa laakiin kooxda waxa ugu weyn ee laga fiirinayo waxay ahayd in isbedel dhanka tartanka Champions League because City waxa ognahay in dib ay ku qabto gaaritaanka finaalka tartanka Champions League hana shay iska badaa ay gaartay semi final waxana gaarsiin adiga noo soo xiri doona barnaamijka oo su'aalaha ugu dambeeya aan weydiin doona Man City oo iyadana aan ilownay Chelsea oo waxba ka dhihin labadaas wax nooga dhig waa santahay taa ka hormaro midda oo Chelsea ah horta macallimiinta markay noqoto macallin Chelsea waxa uu kala lambaad oo kale sida caadiga markay noqoto ciyaartooyda Premier League ka ciyaar ama Ingiriiska u dhashay ciyaaraha tababarnimada shaqo ma ku lahaba ay shaqadoodu waa inay TV tagaan hadda wuxuu ku maqan yahay Scotland waa ku ugu fiican school soo ka sii weynaa iyaga ma taqaana ay sheeg waa ku ugu fiican lambaad jira asaas la isku day fiican ay sameeyaan garaan kooxoodan guul la sameeyaan inta kale waxay hayeen markay ay fariistaan kabaha dhigaan just in tagaan studio maanta dhan sheegaa markay dhahaan heel sam waa gaar level oo kale afka ka hadlaan markay ay gaar level xitaa qudhiisa waxa loo dhiibay Valencia Valencia laga soo buriyay xitaa marka Jose Mourinho xitaa uu sheegay macnaha waxa loo jeedaa in ay yihiin dad afka ka hadlayeen laakiin lambaad xoogaa tijaabo uu sameeyay inuu kooxdiisa ah waliba isku day fiican uu sameeyay lagu aamino ayada wax weyn yahay soo waxaan isleeyahay lambaad inta uu gaaray hadda hadiiba laga helay uu dadaalayba wayna fiican tahay inta uu sameeyay laakiin Pep Guardiola City iyo Pep markay noqoto macallin ka hadlayna macallinimadiisa Pep gorgortan ma aha marka uu Ingiriiska imaadane season-kii hore ogeetay lagu dhiga 20 dhibcood ka badan horyaalka looga qaaday season-kaana sidaan ku bilaabato wali ma taqaana dhiga cusub waxay keentay waxba iska muuqan xaaladaas ka horta sida muuqata bilaaga hore horyaalada marka qaarkood waa dhici kartaa kooxda inay mar kufto marka cad waa dhici kartaa sida waxaana fiican bilaaga hore kooxda inay ku kuftaa fiican si ay markan isku saxda gadaal dambe hadda Liverpool gool dar fiican ku dhacdo gool loogu badiyay ma leeyahay kar marka way burburtay uu ma leeyahay karo waa uu saxa simple uu saxa soo macalinka sax lahayn uu aqoontiisa uu leeyahay xirfadu uu leeyahay ma aha macallimiintan oo hal mar isaga toostay markino hal sano iska orday ma rag macallimiin oo markino ay fahansan ku badacto ay kooxdooda waxa ay rabaan falsafada ay rabaan ciyaarsiin karo marka waxa is leeyahay Pep ee uu saxi karaa waxweyn ma ahan sanadka hore markino gaab fiican oo jiray wala suuq uu saameyn ku yeesho loo geeyay badanaa inuu xoogaa macallin aad adeegsado lacag badan dadka qaarkood ay ku dhaliilaan haddana waxa is leeyahay wali uu soo saxi karaa markino waxweyn ma aha arinta Chelsea waa iska caadi normal ah wax laga fil lahay waay waxweyn ma ahan hadii uu Pep lambaad maanta kaalna afraad gal ama shanaad gal waxweyn ma aha waa xirfadiisii meesha ku jaan go'an waay aslee marka hadii shanaad ama afraad gal wali uu guuleystay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dooda iyo waliba falanqaynta suuqa kala iibsiga ku saabsanaa iyo horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub waxay kala qayb galayay saaxiibka Ibros iyo waliba Aragsan aniga Jaan Go'aan barnaamijka idin soo jeedinaya waxaana u mahad celinayaa maqaayada Asal Mandi oo nagu casuumtay inaan holkeeda barnaamijkan ku qabanno iyo maamulka iyo maqaayada dabcan qiimaha iyo sharafta leh ee aadka inoo karaameeyay oo holkan quruxda badan nagu casuumay waxaad nagala socoteen Rajo Cable